كحلنا الجنال كددوينها سبسكرايب صار أو كصوبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkula wadaagi doonaa qisada wiil yaro aad u la yaab badan waxaana ka turjumaysaa qisada wiilkan halaaga ay leedahay fudfudeydka iyo khayra mas-uulnimadu. haddaba wiilkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Tyler, waxa ayna qisadiisu ka bilaabmatay Los Angeles dalka Mareykanka. goobtaasi ayuu Tyler ku dhashay sanadku markuu ahaa 1992 miilaadiga. qisada Tyler yaraantiisii waxay ahayd mid muruga ah sababtoo ah asagoo da'diisu aad u yar tahay ayaa waxa geeriyooday aabihii. muddo yar kadibna asagoo weli aad u yaroo da'dii carruurnimada ku jira ayay hooyadii isaga tagtay. waana dareemi kartaa xaalka ilmo yar oo ku barbaaray hooyo iyo aabbe la'aan. haddaba arrintaasi markay dhacday ayaa ayeydii amba maxooydii oo ka duulaysay in wiilka yar la geeyo goobaha carruuraha agoomaha lagu hayo ayaa waxa ay go'aan ku gaadhay inay iyadu gacanta ku hayso koriso. Tyler maxoydii amba ayeydii waxay u muujisay kalgacayl waalidnimo. iskuulkii ayay geysay si wacan ayaana waxbarashadiisii ugu socotay. Tyler wuxuu ahaa nin fariid ah oo aad u caqli badan, hase ahaatee hal cillad ayuu lahaa. cilladaasi amba dhibaatadaasi ayaa waxay ahayd waxa uu aad u necbaa iskuulka. mar waliba oo iskuulka tago waxa uu dareemayay cadaab aad ayaana u necbaa inuu fasalkaasi dhex fadhiyo. ayeydii ayaa waxay aragtay asagoo aad uga cagajiiraya tagidda iskuulka. marar badan ayay kula talisay oo ku dhiirigelisay tagidda iskuulka iyadoo isla mar ahaantaana u iftiimisay faa'iidooyinka dhaxalgalka ah ee yaalla iskuulka. balse waxay aragtay inuu aad uga soo taagan yahay tagidda iskuulka, arrintaas oo keentay inay ugu dambayn faraha ka qaato. wiilkana markii uu yaro weynaaday waxauba go'aan ku gaadhay inuu gebi ahaanba joojiyo tagidda iskuulka. intaasi kadib waxau noqday qof guri joog ah oo guriga dhex fadhiya. waxauna waqtiyadiisa inta ugu badan ku hoos qaadan jiray kombiyuutarka isagoo isla mar ahaantaana ciyaari jiray geemta. shaqooyin ma aanu raadsan, howlo kale kuma aanu fikirin, keliya waxa uu noqday qof 24 hoos fadhiya kombiyuutarka oo geemta ciyaaraya. heer ayba geemtii u noqotay caado aanu hal maalin ka maarmi karin. Tyler siduu maalin walba ugu foganaa kombiyuutarka hoosteeda iyo geemtan ayaa waxa uu ku soo baraarugay iyadoo da'diisii korodhay waqti badan oo kaga lumay geemta. haddaba ciyaaradda geemtu maadaama ay u tahay hobby amba waxay naftiisu jeceshahay, waxa uu isku dayay inuu dadaalo oo horumariyo xirfadiisa ciyaareed ee geemta si uu u noqdo geemar xariif oo awood u yeelan kara inuu ka qayb galo tartamayaasha adduunka ee dhinaca ciyaarta geemta. dadaal badan ayuu muujiyey, waqtiyo aad u badan ayaana kaga baxay, hase ahaatee kamaanu gaadhin martabadii uu ku riyoonayay inuu ka gaadho ciyaarta geemta. horfadhinta 24 kombiyuutarka horteeda iyo ciyaarista geemtu waxa ay nolosha Tyler ku yeelatay raadad iyo saameyno aad u halis badan. maanu lahayn Tyler saaxiibo dhab ah oo toos ula kulmo. saaxiibadiisuna waxay ahaayeen kuwa khayaali ah oo ay kaliya ka wada sheekaystaan baraha internetka. kuwa waxa uu saaxiibo la ahaa ayaga laftoodu sidiisa oo kale oo geemtoon ciyaaro guryaha dhex fadhiya. haddaba saaxiibtinimada u dhaxaysay asaga iyo geemariska kale ayaa waxay ahayd mid ku salaysan saaxiibtinimo caadi ah, balse mararka qaar waxa dhexdooda soo gali jiray muran iyo murankaasi ooba mararka qaar isu bedeli jiray cuqdad iyo cadaawad. haddaba isafgaran waagaasi iyo cadaawadaasi ka curatay gudaha dunida khayaaliga ee internetka ayaa mararka qaar waxayba saameyn ku yeelan jirtay nolosha dhabta ah. maalin maalmaha ka mid ah Tyler waxaa ku dhacday dhacdo aad u argagax badan. taariikhdu markay ahayd bishii February 2015, maalin maalmaha ka mid ah asagoo guriga si degan isaga hurda waxa uu hal mar ku soo baraarugay buuq iyo sawaxan dushiisa ka baxaya. marka uu indhaha kala furay uu soo booday ayaa waxa indhihiisu qabteen boolis aad u tiro badan ooba ninkii weerar ku ah. yaab ayay arrintaasi ku noqotay Tyler sababtoo ah maanu ogeyn wax dembiya uu geystay oo ciidanka intaasi la guriga ugu soo dhacaan. Tyler oo yaabano isku dhex taadsan ayaa bilayskii waxa ay weydiiyeen aaway meydka wiilkii walaalka ahaa ee dishay. Tyler ayaa deetan ugu jawaabay waa maxay walaalkaa sheegaysaan, aslan maba jiro wiil aniga la dhashoon walaalanahay. intaasi kadib bilayskii waxa ay xaqiiqsadeen inay fariinta soo gaadhay ay ahayd mid been abuur ah amba waxaan afka Ingiriisiga lagu yiraahdo iswaarin. haddaba iswaarin oo maxaa tahay? iswaatin waa in lagu waco lambarka gurmadka degdega ee dowladda isla mar ahaantaana loo sheego warbixin aad u halis badan balse been abuuran waxba ka jirin. ujeedka iyo danta laga leeyahayna waa kaliya in la argagax geliyo qof kale la damacsan yahay arrintaas. adigu waa darajo aad u sarreysa oo qayb ka ah waxaan loo yaqaano prankiga amba waxa la odhan karaa waa kaftan iyo tooxsi meeshii ugu xumayd gaadhay. dabcan waa arrin aad u argagax badan adigoon wax dembiya geysan inay bilayska gurigaagii kugu soo weeraraan. ciyaaraha noocaasina waxaa ku caan baxay oo lagu bartay geemariska noociisa oo kale geemta ciyaara. dabcan qofkii fariintaasi been abuurka ah u diray bilayska waxa uu ahaa qof ka tirsan saaxiibadiisa dunida internetka ee geemariska.
maalintaasi wixii ka dambeysay Taylor waxa uu go'aan ku gaadhay inuu barto iswaarinka iyo sida loo sameeyo si uu uga arguto u ciqaabo qofkaasi bilayska ku soo diray. arrintaasi ayuu falgalay waxa uu baaritaan ku sameeyay sida loo sameeyo iswaarinka, tusaale ahaan sida loo qariyo locationka amba goobtaad joogtid iyo telefoon nambarkaaga iyo guud ahaan arrimahaaga shakhsiyadeed ay bilaysku kugu soo tixraaci karaan oo gacanta kugu dhigi karaan, sababtoo ah arrintani waa arrin aad u halis badan oo qofku ku mutaysan karo xabsi. ugu dambayn dadaal badan kadib waxa uu si fiican u bartay iswaarinka. wax walba waa uu diyaarsaday qofkii uu beegsan lahaa, xataa waxa uu diyaarsaday uu hab uu aad uga baaraandegay u qortay ereyadii uu ku odhan lahaa bilayska marka uu waco iyo habkii uu hadalkiisa ugu qancin lahaa bilayska, iyadoo isla mar ahaantaana uu iska sii tijaabiyey intaanu wicin ka hor bilayska. haddaba markii uu wax walba diyaarsaday, qofkii uu weerarka ku qaadi lahaana uu diyaarsaday oo ahaa geemar kale oo hadda ka hor ay xurgufi dhex martay, ayaa waxa uu wacay bilayskii. markii uu wacay lambarka gurmadka degdega ayaa waxa uu ku yidhi ereyadii uu diyaarsaday, iyadoo isla mar ahaantana uu bilayska u jiheeyey ciwaanka qofkii uu beegsanayay. arrintii sidii uu rabay ayaa u dhacday. bilayskii kama aana shakin hadalladiisa, wauna ku guulaystay qofkii isna inuu ku sameeyo sidiisi la mid ah. haddaba arrintii markii uu ku guulaystay ay u dhacday sidii uu rabay ayaa waxa uuba aad uga helay uu la dhacay iswaarinka. waxauna is yidhi marba haddii aanay bilayskugu dareemayn oon lagu fahmayn, arrintani waaba mid maado riwaayade, bal ka waran haddii baad iska sii wadatid. qof kale ayuu ku sameeyey, waa uu ku guulaystay. qof labaad, qof saddexaad, qof afraad, qof shanaad, yacni qofka marka uu ku samaynayo bilayska ayuu soo wacayaa. waxa uu bilayska ka odhanayaa tusaale ahaan qofka hebel la yidhaahda ciwaanka gurigaa si degan, waxa uu nafta dhaafiyey hooyadii dhaqso hore u gaadha. waxa uuna qofka geemarka ugu wacayay wakhtiga uu liveka ku jiro, yacni tusaale ahaan live stream baad ku jirtaa oo game ayaad ciyaaraysaa, isna waa uu ku daawanayaa. bilayska ayuu kugu wacayaa adoo guriga iska dhex fadhiyo gameta ciyaaraya ayay bilayskii guriga kugu soo galayaan, isna waa ku daawanayaa. intaas ayuu isagu maadii riwaayad ka dhigan jiray oo ku qosqosli jiray. wax weyna umaanu arkayno, wax iska riwaayada ayuu arkayay. yacni marka uu ficilada noocaasi oo kale uu ku guulaysto waxa uu isu arki jiray qof aad u caqli badan oo xataa bilayskaba ka caqli badan, maadaama aan la garanin meeluu joogo, awoodna uu leeyahay inuu ciidan dhan soo kiciyo oo meeshuu doono u hago. yacni caqli badnaan iyo inuu nin halisa yahay ayuu naftiisa dareemayay. markii dambe waxaaba twitterka ka furtay xisaab uu ku qoray magacuu isagoo isku keenkeenay, iyadoo isla mar ahaantaana halkaasina uu ku baahin jiray isagoo ku faanaya iswaarinka iyo ficilada uu geysto. waxa ay waqtiyadu iskuraanba Taylor waxa uu noqday shakhsi aad ula falgala howlaha noocan oo kale. caado aanay naftiisu ka maarmi karin ayaanu iswaarinku u noqday. waxa uuna sidoo kale noqday shakhsi aad ugu xeel dheer dhinaca beenta iyo sida dadka loogu qanciyo. mar walibana waxa kor u sii kacaya khatarta iyo halis badnaanta howlahani uu faraha kula jiray. maalin maalmaha ka mid ah Taylor ayaa waxa uu arkay ayaydii oo TV daawanaysay, waxaana hal mar maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad waali ah. asaga oo qoslaya ayaa intuu soo garab fadhiistay ayaydii waxa uu ku yidhi, ayayo bal ka waran TV-gan aad daawanaysid barnaamijka ka baxaya haddaan giddigiisaba joojiyo oon hawada ka saaro, howlwadeennada TV-ga daadihinayana aan istuudiyaha ka kala kaxeeyo adoo toos u daawanaya. balse ayaydii hadalkiisa waxba kamaanay soo qaadin oo waxay u fahantay uun qof si bilaa macniya isaga hadlaya. muhiimadana maanay saarin oo TV-geedii ayay daawashada iska sii wadatay. intaasi kadib Taylor ayaa waxa uu galay qolkiisii. wax yar kadibna islaantiisa ay TV-ga u daawanaysay unba hal mar waxaa hawada ka baxay oo istaagay programkii ay TV-ga ka daawanaysay. ayaydii ayaa aad ula fajacday waxa dhacay. wiilkii ayay islaantii u tagtay waxaana weydiisay siday wax u dhaceen iyo siday ugu suurta gashay inuu programkii TV-ga ka baxayay uu hawada ka saaro. wuxuuna yidhi way iska fududahay, waxaan wacay lambarka gurmadka degdega waxaana u sheegay inaan ku rakibay dhismaha uu ka baxayo TV-gu miino, daqiiqadeer gudaheedana uu dhismuhu ku qarxi doono. waxay weydiisay oo dantaad ka lahayd maxay tahay, sababta aad ficilkan ugu dhaqaaqday muxuu yahay. waxa ugu jawaabay waxani waa wax iska caadiya, cidna waxba kuma noqon, waa iska kaftan. ayaydii oo yaaban ayaa iska aamustay oo wax allaalay waxay tirada garan weyday. haddaba muddo kadib taariikhdu markay ahayd 13 bishii Oktoobar 2015 ayaa bilaysku waxay gacanta ku soo dhigeen Taylor, iyadoo isla mar ahaantaana looga shakiyay inuu bilayska u diray fariimo been abuur ah. waxaana lagu xukumay xabsi muddo dhan 2 sano iyo 8 bilood. balse xabsigii ayaa laga sii daayay asagoo dhammaysan muddadii loo cayimay inuu ku sugnaado gudaha xabsiga. kala badh markii uu marayay muddadii lagu xukumay ayaa laga sii daayay xabsiga, waxaana laga sii daayay 2017 iyadoo loogu naxariistay maadaama uu ahaa wiil yar oo waayay labadiisii waalidba. haddaba 2017 ayaa waxa uu abbaaray gurigii ayaydii.
balse nasiib darro ayaydii waxay u sheegtay inaanu gurigeeda ka soo gelin waxauna sidaasi ku yaqiinsaday inuu yahay shakhsi aan waxba haysan guri haysan nolol haysan ehel iyo qaraabo xigta ah oo soo dhawaysan aanu haysan sidaasina uu kaga mid yahay bahda darbijiifka ma haysto hoy uu seexdo xataa ma haysto meeluu internetka ka isticmaalo daawadayaal qisadani maadaama ay yaro dheer tahay waxaa habboon inaynu laba u kala jebinno yacni waa inaynu ka dhignaa laba qaybood haddii aad qaybtan dhammaysatay qaybta labaadna kolley waa diyaar oo ma sii sugsugaysid waxaan kuu dhigayaa sanduuqa hoose descriptionka amba commentiga ugu horreeya ambabase waxaa suurtagal ah inay kaaga soo muuqato shaashadani aad hadda daawanaysid ku xidhnow janalka dadweynaha sabskaraib saar oo ku soo biir